in ka badan 190 qof oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka faa'iideystay tababarkan oo ku saabsanaa sidii bulshada qaybaheeda kala duwan loogu dhiirigelin lahaa abuuridda meherada ganacsi kuwa hadda ku jirana loogu dhiirigelin lahaa kobcinta ganacsiyadooda yaryarka ah. tababarkan oo socday muddo 3 maalin ah ayaa waxaa la barayay ka qaybgalayaasha xirfadaha ganacsi iyo kobcinta ganacsigooda, waxaana laga taageerayay sidoo kale qaabkii u xalin lahaayeen haddii caqabadii ay soo wajahdo. waxaa si wada jir ah u fulinayay hay'adaha kala ah Mercy Corp iyo Adesso, waxaana goobjoog ahaa wasaaradda ganacsiga Galmudug, waxaana fangareynayay SSF. mid ka mid ah mas'uuliyiinta ka socotay hay'adahaasi ayaa sheegay in hal sano oo barnaamijkan soo socday. aniga magacayga hadaan ku bilaabo waxaa la yiraahdaa Yuusuf Xuseen Ibrahim, waxaan ka socdaa hay'adda la yiraahdo Adesso. maanta fursad bay ii tahay inaan ka soo qaybgalo ururkii maamulkii cid kastoo halkaan imaatay. muhiimadda waxay tahay inay dadka ogaadaan annaga safar dheer aan soo galnay halkan waxaan u imaan waxay tahay in ulajeedada dhabta loo tago wixii jaalan jira kadibna wax nadiif ah la isku wada imaado insha Allah taala. maayir ku xigeenka degmada Cadaado Nuur Yarow Xayla Shaarbacde ayaa ugu horeyn daafuray tababarkan bilowgiisii, waxa uuna bulshada reer Cadaado ku dhiirigeliyay ka faa'iideysiga tababarkani. maantana waxaan rabnaa inaan ka sii faa'iideysano waxyaabaha caqabadaha iyo sida loo gudbi karo inaad adinku ka doodin laftiina fikir ahaan keedin si maskaxdiina looga faa'iideysto, maskaxda tababarayaasha iyo mataqaana training-ka looga faa'iideysto, dhammaanna la iska tuso in la horumar laga gaaro. mar haddii caqabadihii iyo faa'iidadii iyo problemada imaanayo wada tashi laga sameeyo fikra ka soo baxaya dadka. gudoomiyaha rugta ganacsiga Cadaado Cilmi Nuure Weheliye iyo gudoomiyaha ururka ganacsatada yaryarka ah Cabdinuur Cilmi ayaa amaanay barista bulshada xirfadaha ganacsi. marka waxaan ka codsanaynaa oo si codsi u gudbinaynaa inay mashruucaas hadii Ilaahay idmo dadku waana dul qaateen, waana dad wanaagsan oo raba inay shaqeystaan. sidaa darteed waxaan rabnaa hadii Ilaahay idmo hadduu soo dhawaana mashruucii inuu bilowdo, hadduu soo dhaweynaa in la dedejiyo oo ay dadku dareemaan in maaragtay ay faa'iido weyn ka heleen maskaxdooda wax ay ka ruuxeen. runtii ka urur ganacsi ahaan heerarka hoose dhexe ee deegaanadan wuxuu ahaa program aan aad u la soconay in badan aan baaqdheer u jeedinaynay in ay dadkaani loo sameeyo shaqo abuur si loo helo dhalinyarada loogana celiyo arrimaha tahriibka, askaraynta iyo waxyaalo la halmaala. agaasimaha wasaaradda ganacsiga Galmudug Xasan Diine ayaa soo dhaweeyay, waxa uuna sheegay in ka wasaarad ahaan ay juhdi badan geliyeen sidii dhalinyarada lagu tababari lahaa xirfado ganacsi. halkan waxaa lagu qaban doonaa maanta dood ku saabsan caqabadaha ama challengeska dhinaca ganacsiga degmada ka jira. waxaa la rabaa in la soo raise gareeyo ama la soo gudbiyo wixii caqabadaha jira si loogu base gareeyo, yacni reportka loogu base gareeyo loona share gareeyo muxuu ahaa hadhow aan moogta loo ogaado caqabadaha ama halka laga jaan qaadi karo. marka hal mid baan rabaa inaan ku soo koobo dadka la rabo inay ka faa'iideystaan oo loo soo xulay programka. horta waa program tijaabo ah. Cabdirasaaq Al Cadaala, warbaahinta Goobjoog, magaalada Cadaado.